يا wax ka xasuusta heesihii ciid markaas waxa soo baxaysa soo baxayso يا عيد ونكسن إلهي نسي يسقاك وهمالي إلهي نسي يسقاك وهمالي ويا تيمانتا سوى نكسن ويا تيمانتا سوانا سنولينا تناقع عليك سعيد مو قاعد الفنان كذا عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام يا مركو هوري ولكن يربط بيحيق فدية شير غالب مرت شرف تقيمها له علي عبد ورديري iyo abu karaada deeqo wasaato iyo walaalkay isagana qaybta farsamada isku dibridka noo jooga cali dirood marka waxaan leeyahay ciid mubarak umad Soomaali meel bay joogaan waxaan leeyahay ku ciida farxad gay walba joogtaan si guud ah iyo si gaar ah idin salaamaya marka waan kaga mahad celinayaa walaalahay aad iyo aad u mahadsantihiin hal topic aan ku soo dhex tuuraya maadaama aan meeshaan anigu ugu yarahay oo miiskan yahay miis dimuqraasiye marka waan ka faa'iideysanayaa taas oo ah sawir baan shalay arkay sawirkaas marka waxaan u soo qaatay inaan maadaama waalidiintihiin annagana aan generationkeygana aan ku soo kornay wixiina ilaa hadda taagan yihiin sawirkaas marka waxay idin explain kareen waxa waaye carruur wadato biskoolado marka biskooladahaas waxay u wataan inay ku ciidaan waxaana u iibiyey waalidiintii laakiin waxyeelada ay keeni karto aa ka weyn marka ase waalid ahaan sidee u aragtaan fikir fiican in waalidka ay u gadaan biskooladaha iyo in laga joojiyo bismillah Oscar والله runtii arintaas aniga waa arkay korontada iga tagtay wada waa ka naxay waa argagaxay ciyaal Soomaaliyeed oo bistoolo qoray Facebook anaga waxa ku soo kornay ciid xaafada tageyna xalu doorshan la siina lacagana la sii jiray waa baashaari jiray buufin bisan naqaanay laakiin hadda qoryahan wallahi waa ku horta waa ku farxsan caliyar inuu la joogo maanta oo maartay hadda dawladda oo dhinaca dawladda aan ku tuminin oo dawladda nabad oo member fiican ka ah in dawladda naga gaarsiiyo aniga waxaan eedda dusha ka saari lahay ganacsatayaasha in loo ogolaado inay bistoolo ciyaalkeena ciyaalka hadday ku soo koraan gangi waxba lama ahbee waxaa soddonkii sano oo na burburay qoray waaye ciyaalka in qoray lagu soo guriyo wax laga xumaado waaye taas aad ugu xumaanay marka fartiin inuu dawladda naga gaarsiiyo si mar damba loo keenin sida ganacsatayaasha laga stop garay waxyaabaas in ciyaalkeena ay ku soo koraan cali fikirkaaga shukran way cali wareer adiga waay أنا وارك أنا مركي رانا واسمين جرنا وأنا لو جدي جري صح وأنا واحد إسكسو جري المدة أبيض ما كان دجال كنا دجال إسك عادي سامع بركلي هذا دجالكو دجال معبودكو وحنا كجرنا يسا مقعدا
marka lagu yiraahdo hadda tusaalahaan odawaa aabihiisa soo arkay inaa la dilay laga wadaa diiriya marka lagu dhaho ciddii oo ka jajabanta qola soo weerartay oo la karbaashay wiilka aabihiisa arkay inaa la yidhaha inta badan Soomaalida Aba ma arkin okay dagaalku dhintaan Soomaalida odawaa waa erayga saxda lahjada unbaa xoogaa kala duwan diirihiisaasa laga wadaa muxuu ahaa horta wixii asal waxeena dirir ah ka mid ah waa dagaal asal horta wixii waaba dagaalba colaadaa ka mid ah marka waxaan u maleynayaa waa wax oo u baahan in si miyir qabta mar looga fikiro adduunkan kala damaashaadka ka jira Sweden waa laga mamnuucay ma leeyahay fireworks ka maaragtay حتى وحاجة إيج أنا قاعدين سماه. ده أجرت. 18 سنة وحده وين أنا قاعد. ما الخسارة ما نذكر على مالمها. ولا جوجي. مركب وحنا وحبا أيام سنة كهرة دولة الصومالية وحيد هذا لا بقدك. وزير كي جرع سوي مركز. يجري. لكن سيدو يجري سيدي صحراء ما هي. تصالح نوصل قدرنا وحوي. alaabtii oo ganacsiga ay dalbeen oo baqaaradii ku jirto oo market ki yaala yuu yiri lama gadi karo xigmadna maaha lama sameyn karo marka waxaan u baahanaa wax u baahan in sano kale looga fikiro xilli fiican dood laga keeno wardiintu doodooda ay maarata rays gareeyaan kadibna la yiraahdo muddo 6 bilood oo kale markii ay ka dhiman yahay la yiraahdo sanadka soo socda lama keeni karo ma sha Allah markaasna dekad lagu kontrol maanta waxaan arkay dhakhtar xamar jooga يا وحي يجري ساكن مركز حفيز كسوق علي أفرتي قف يوريش أنا قابل عروها مد كميدو وبعد أنا مالتي إيش يوكل علي مد أنت سوسو اخترع ساكن يا بس مركز ضد جرتواي لكن أنا مد حاجة أنا لا يبتني إدعي كرتان قواجر صح أنا واقع علمها تقال إلا برا أنا فكر كيسو أنا وحان قبا المها أنت قال كلا برا ilmuhu inay soo doqoomooyin waa qabaa waagii oo aniga ninkaan muqaawabada isla ahaa jirna marka maxkamadihii Soomaaliya markay jireen yaa doodaa timid hubka hala ururiyaa la yidhi nin oday oo xasdan u isla yidhaahaa intii kale mowqafkay qaateen maahe mowqaf ka soo horjeeda u qaatay sidaan maqlaan deerunta wuxuu yidhi hubka lama ururinayo hubka inaan wax lagu dhibaateynaan ilaalinaynaa laakiin hubkaan dadka laga baqadaayo cadowga kusoo duuli kara waa inay helaan wax iskaga celiyaan laakiin hadda anagu aan controlno oo ku ilaalino inay isku dhibaateen arrintii waxa loo baxsaday markii xabashadu Soomaaliya ku soo duushay yaa loo baxsaday qofka gurigiisa ku soo baxay ama xarawaati inta la qabto naasaa laga garaacay marka aniga waa qabaa in dagaalka iyo waxaasi inaan la suulinay ilmaha dagaalka iyo raganimada iyo maarag walaga waxa ilmaha haddaan dirita la barin waa la doqomooba haddaan la doqomoobo haddii la doqomoobana dad la iskama celi karo ma horta waa sax taas waa mid laakiin influence-ga laga hadlaya qofka wuxuu ku koro maanta hadii ubadka markuu yar yahay hadduu arko dhakhtar ama qof horumar gaaray qof oo role model u noqon karo laakiin hadduu xabadii arko ama wuxuu noqonayaa tuugu noqonaa ma wuxuu noqonayaa qof inay wax bartaan qalinka qoryaha dhigaan qalinka ma fahanti hadda xilliga aan ku jirno qoriga dhig qalinka qaado taasar ilmaha waxay wataan qori maaha ودم شوي لكن واحد تربيدي واحد لكن مسكين أنا أنا حيس مركان ها وحي لكن واحد سوي جرو أنا اللي يجي جرو أنا سمين جرو نموتان يعني درك يدك لي مركب واردك سومالي نقضه أنصح ما هاجر هذا وصل صدرك ولا أنصح ما هاجر أنا مركب لكن ما دادي يلا هلا حتى ما دام جنريشن كان نقضين جنريشن ما شاء الله أو وحبرتين oy qalinkooda ku shaqaysanayaan soo ma taagna xilligii la bedeli lahay bas horta hadii la dhaho waxaan xoog lagu joojiyo ana waxaan qabaa wax kasta oo la muquujiyo ama xoog lagu joojiyo siraado waxay sameeysaa waxa la yiraahdaa ficil celin bay sameeysaa ama waxa dadkii waxa lagu soo gelinayaa maxaa la dhahaa si qarsoodi lagu soo gelinayaa
waxaa badanaysa qarashkii dawladda ay ku kontrooleeda baranayo waxyaabo badan ayaa meesha ka dhalanaya laakiin si waxaa lagu bedeli karaa si kale oo sida hadda wadamadan horumar ay sameeyaan tisaamada sigaarka ogyihiin inuu dhibaato leeyahay waxaa la sameeyaa waxaa la yiraahdaa marka hore waxaa la timaa canshuurta lagu kordhiyey dawladda lacag ka faa'iido qof gadana qaali ku tahay marka labaad waxaa lagu qoray korkiisa waa inuu khatar ku yahay caafimaadka waa la qabsaday dad badan ka haray markasta waxaa hadda la bilaabay inaan lagu cabin kalaabiyada dhexdooda inaan lagu cabin meelaha yani ma khatarta la yareeyana sidaas oo kale diinta xataa markii waxa la xarima ilaahay wuxuu sameeyaa step by step yani hal mar xoog laga saaro meesha khasaaradooda faa'iidada ka badan khamriga kale markii joojinay diinta waxa la soo maray saddex step yani marka waxa la yiri idinkoo cabsan salaada u dhawaanina kadib tartiib markii dambe ilaa markii dambe la mamnuucin taas in la adeegsadana aad u fiican yani Khalid say kula taadiga aniga yani walaalay fikradooda waa la qabaa aad iyo aad waa arrin aad u wanaagsan يعني أنا وحن فوكس كسر لها والدين تمام هذا أنا ذلك إنه مدة كسر جري دباته وقت يوم عيه ذلك كان ستة إن إيه كينان لقنا وعي قليو إلا ده إن عروت وحدو كينتان وحقر حنا لا شو أنا قعدت وحن سمعنا وطن كان عروتة على وديكا دوغسك عروت سكول كمرة كتير وحيابه حلو ديبا ترين سكول دجن صلوا اسكو حرا دي لو قراي اسكو حرا قيب اسمي قيب اسمي الله سمايا قيب تريندي قيب بابور marka waxa soo dhan in loo keeno waa si mataqaana maskaxda uga soo koraan logo walda exactly ali marka uu quraxsana walaalkay waqtiga markay dalka la difaacay waa markay yani iskuulada ka baxaan kan dhexe kan sare iyo kan hoose markay soo dhameeyaan kadib inay difaac qaran aadaan sida wadamadan ay tahay laakiin hadda waxa ganacsatada markay qori u keenaan cunuga violence ku koraa warun sababtoo qoriga hadduu san dhicin xataa filmaantu fiirsana uu isbedela after 10 years waxa ninkii waa violence ma noqdo laga yaabaa marka waxa wacyi gelinta shacab iyo dawlad bayna iska kaashadaan oo mataqaana isbedel buuxa lagu sameeyo wixiina martaqaan tartiib ayay u imaanayaan anaga waaga dhiganaynay iskoolka Yasiin Cusmaan waxay ahayd dugsi hoose dhaco ah asiiliin wala asiiliin waa sida dogs oo kale marka tariinka markaan isku dhajiyay caawil la isgilgelinay marka laba xab markaan ka tago waxa leeyahay log ya ka tagtay log meesha laga wado way marka waa wax la isku xiran yahay log wuxuu ka metelaa dawladii inta dambe israacsan oo qaybaha kale vaagniin waa shacab marka saas in la isku raaco way marka in loo sheego la dhaho violence-ga halaga joojiyo ciyaalka loogu bedelo tartanka iyo ma horta xilli hadda waxa ku jirnaa oo aan u baahnaa ad all wax hub ama dhibaato keenaabo in laga hor yimaado soo kabasha ku jirnaa ma fahantay generation ka soo baxayo already anaga dawlad waliga ma arkin runta fiican exactly waqtigeega haddana waxa waaye nin weyn ah ma fahantay so aroonta ubadkeygana bari inuu ku koro dagaal iyo qac iyo dalkiisa inuu wax u qabsan waayo because of dad isku dilay dartood exactly ma fahantay so sidee ugu hortay karnaa horta koob aas-aaska inaan caruurteennii in a way aan ugu taxadirno ee nabad iyo farxad ku noolaan karaano iyo dal jecel taas aan qabaa صح سجود واسكو رعنا اني arrintan ay say ababinta u fiicneen ubadka ana waxaan ku soo gabagabay lahaa saddex meel ana laga abaaro ka warid ahaan markaan hadlo صح waxa fiicnaan lahaa koow saddexda meel in yani waxaan jeclaa saddexda meel inay noqdaan dawladda meelaha shuruucdeeda iyo ganacsatada meelaha iyo waalidka meelaha thank you waxaa ka mid ah dawladdu inay xilli hore oo ganacsatada sii ogaadaan ay tiraahdo xilligaas xilli ramadaanka soo socda hadda tusaale ahaan waxaa soo socda laba bilood kadib saddex bilood hadda in la sii sheego tusaale ahaan waa mid waxaa ka mid ah waalidku inay si ilmahooda u gadinba midda saddexaadna waxaa ka mid ah ganacsatada ruuxooda ilmay leeyihiin waalid ama waalidiin noqon doonaan ya ama mas-uuliyadaas saaran qofka ilaahay xataa ulaad u qorin inay iyaguna ay mas-uuliyadaas qaataanna way ficnaa lahayd laakiin aniga mar kasta ma aaminsani ilmaha inaan dirir la barin ma aaminsani midka ama aniga inaan ilmuhu naga daqoomoobaan ma rabo inay wax iska celiyaan waan rabaa laakiin inay wax iska celiyaan keliya mutacan ma rabo xigmad diina in lagu ababiyaa la rabaa
maadaama maalin farxad aan ku jirno ها بس Khalid nin xaga la soo fiirinaya aad iyo هو كل هسينا أنا aad soo dhaweystaa horta super Khalid niyo Ma sha Allah. aniga waxaan ka helay super Khalid intaad gelin aad iyo aad niyo waxaan kugu amaanaa sax fanaannimada iyo odaynimadaada niyo wax yaab leh Ma sha aan la aniga Soomaaliya meel kastoon joogo aad iyo aad waa la socdaa beejkaaga ما شاء الله شرف يعني كرم aniga mararka qaar waxa iraa mataqaan aad iyo war dowladnimada Soomaaliya صح yaa noogu dhiiba walaal afuri aad iyo sababta walaal afuri Hadi. waa transparent waxdu xisaab Hadi. lacagta intaanaan qabanay halkan intaasaan ku dirnay exactly rasiidkii waa kanaa ما شاء الله Allah intaana ka faa'iidaysatay yacni adiga Schedule iyo sana Bashiir waa. bootaan ciise بشيرة ما شاء iyo الله yacni dad Soomaaliya Adag oo waaye. wax oo yacni yab leh ما شاء الله ummadda kusoo kordhiyatiin midaasna waa ku welisaa Soomaali gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta Yeah. ammaana inta la ilaahay idinka socdo aakhire ilaahay agtiisana intaas ay آمين. tahay آمين. waa آمين. inuu ammaano علي runtii meel weyn waa rib arrinta ugu علي fadhiisto walaalo ku aad iyo aad waa ku mahadsantahay علي bashirigana naga gaarsiin aad iyo aad islamaantood adiga وعلي sidoo kale walaalkeen yani ixtiraam ku haynaa nin waxa tahay walaalo qiimo leh oo run ahaantii aad iyo aad mataqaanaa howlaha uu wadana mataqaanaa aad u taageersanahay waxyaabaha sida dhalinyarada u wacyigelisid sida mataqaanaa dalka horumarkiisa uga shaqaynaysid sida u rabtid in mataqaanaa loo horumaro oo looga gudbo caqabadaha jiro marka aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayna cali nin waxaa tahay dhalinyarada mataqaanaa u baahneed ilaahina ajri xasanaada kaa siiyo dhammaanteen ummad Soomaaliyeed nahay cali diroog boos adiga aniga dawladda lagu sheegay anaga waa marka servingkii la bixinayn waxa waaye dadkii mas'uuliyadda hay ayaa bixinay aad macnaheedu waxay tahay dalka dhinac ka dhisaysaa marka waxa waa waxaan wada leenahay si guud iyo si gaar ah dalkeen anaga u wada leh daladan inaan noqono qof walba daladu waa aragtay waxay ka samaysan tahay 10 fiilo oo saas marka haddii hal kamida uu siimo way soo dumay meesha biyo keeni marka dalad inaan u noqono dalkeena aad iyo aad aan kaga mahad celinayaa waxaan idin leeyahay ciid mubaarak shuciid غالب ولالكي عبدي محل علي عبدي ورديري أو كرادن ديقو بوس عاتو iyo علي ديروب فرحد وين إن ما أنت نوت هاي ومالين تلباد عيدان كوجن رير ستوكهولم سيد علي وشيء كوي تمسون كسر سوما دلكي إن كستواني أنك جعل دلكي إنهم كسوما سيدو أسقط ما أنت في عم بكسر صعد ها ركوا إنا ودلكي نودد لنا هذه هذا نكون مال علنا عيد مبارك عن الله هاي وهم كسر جبينا هيستي هيد ما دام عيد أن قادنا حرب إنا دتك أن ضلت بريش أو نقن صح ها صح marka insha Allah qad ayaran ku dhufanaya insha Allah umat wala laruma dumariyo rag dumari way isku duubanto daniyo howl wadaag ba loo dadaalaya haye diidayo waa dalkaagii doqoniyahow waa dadkaagii dabalayahow waa digniine waa digniine waa digniine isdaryeelo dalkiina dhista هذا ما سنتين هذا تعليل نحوي إلهي متقنا عافمات تاماسيو وفنان آدي قيمة أقوله dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo askariga fanaanka madaxda dalka dadka u shaqeeyay waxa waaye dalka dadka u soo shaqeeyay xaq bay nagu leeyihiin sida anaga u noolaana dad hadda god ugu jiro oo la dagaalamaya dalalka dariska marka waa inaan la fiirinin waxyaabaha dhexdeena aan dalkeena u istaagno wixii kalena anaga aan dhameysano marka waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato waxa aan ku soo gabagabeynaa cajiib ah runtii anigu ay geesiin dadka hadda yani naftooda u horay in ay dalka intay tagaan xil qabtaan mataqaanaa marka wadankii u hagar baxan yani waxay ku shaqeynayaan duruufo aad u adag hadday noqon lahayd naftooda halis gelis hadday noqon lahayd bulshadii oo meel hoose taalo dhaqaalihii oo burbursan marka runtii dadkaas naftigooda dhiirigelin bay u baahan yihiin madaxda iftiin qurux badan oo wadanka soo socdo sida hadda arkayna sanadadii u dambeysay marba marka dambeysay uu kasii fiicnaanaya ma sha Allah marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu آمين آمين علي علي نفط رياش كبيرة علي أقصد كوجن كبرنا عذر كان الدنيا الإله نقدر القادم آمين آمين
iftiimay xidigtaa ku astaysan